Assalaamu calaykum. Waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa falcelintii uu sameeyey Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Hussein markii uu askari Mareykan ah u sheegay in saacado kadib la daldali doono. Sidoo kale waxaan idinkugu soo gudbin doonaa xogo kale oo ku saabsan habeenkii ka horreeyay subaxii la daldalay Saddam Hussein iyo dalabkii la yaabka lahaa ee uu gudbiyey ka hor dilkiisa. balse intaan u gudagalin faahfaahinta haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu cusub subscribe saar gambaleelka furo sidoo kale like saar muuqaalkan si ay dhiirigelin noogu noqoto mahadsanidin. qareenkii hore ee Saddam Hussein Khalil Duraymi ayaa kashifay xog ku saabsan wixii dhacay habeenkii ka horreeyay subaxii Mareykanka iyo xulufadiis daldaleen geesigii Islaamka Allah u naxariistay Saddam Hussein. Khalil Duraymi oo ka hadlaya habeenkaas ayaa yiri sida tan: saacadihii ugu horreeyay habeenkii Jimcaha ka hor daldalaada qaar ka mid ah ciidamadii ku qornaa ilaalinta qolkii uu ku jiray Saddam Hussein ayaa u yimid si ay u macsalaameeyaan. waxay u sheegeen in saacado kadib waliba subaxa aroor hore la daldali doono. habeenkaas Saddam sidii caadadiisa ahayd ayuu sariirtiisa ugu qaatay kadib salaadii cishaha waxa uu akhrinayay Quraanka Kariimka. Duraymi oo kasii sheekeynaya wixii habeenkaas dhacay ayaa sidoo kale sheegay in saraakiishii ku qorneyd xabsiga lagu hayay ay si aad ah habeenkaas xaaladiisa ula socdeen iyagoo ka cabsanayay in uu isdaldalo ka hor intaan subaxii la gaarin. Saddam waa uu soo weys qaatay, wuxuu soo qaatay kutubka Quraanka Kariimka wuxuuna akhristay intii uu ka gaaray musxafka. markii la gaaray 10kii habeenimo ka hor salaada subax, mid ka mid ah ciidamada Mareykanka ayaa aaday qolkii uu ku xirnaa Saddam Hussein. wuxuu u sheegay in ay ku wareejin doonaan maamulka Ciraaq si ay ugu fuliyaan daldalaada, waxaana uu weydiiyey dalabkiisa ugu dambeeyay ee uu codsan lahaa ka hor intaan la daldalin. Khalil Duraymi waxa uu sheegay in Allah u naxariistay Saddam uu marka hore dalbaday in uu sagootiyo labadiisa walaal Barzan iyo Sabcawi. sidoo kale wuxuu dalbaday in loo keeno jaakad uu jeclaa in uu xirto. intaas kadib sarkaalkii Ameerikaanka ahaa ayaa u sheegay in dalabyadiisa la ajiibay dhammaan, laakiin waxa uu weydiiyey sababta uu jaakadaas u dalbaday. intaas kadib Saddam ayaa sarkaalkii Ameerikaanka ah ugu jawaabay sida tan: jawiga Ciraaq aroorta hore waa mid aad u qabow, mana doonayo in aan qabowgaas dartiis la qarqaro oo ay shacabkayga u qaataan in hogaamiyahoodii uu geerida ka cabsanayo. allow kuu naxariiso muxuu geesi tol waayay ahaa. sidoo kale waxyaabihii uu Saddam dalbaday ka hor intaan la dilin waxay ahayd in qoyskiisa la gaarsiiyo fariin uu u qoray gaar ahaan gabadhiisa Raqda, waxaana qoraalkaas ka mid ahaa in uu naftiisa u horay dalkiisa Ciraaq isagoo sharaf lehna uu dhimanayo. waxa uu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay oraahdii caanka noqotay isagoona yiri sida tan: hogaamiyaasha Carbeedow, aniga waxa ay daldali doona Mareykanka, laakiin idinka waxa idin dili doona oo idin daldali doona shucuubtiina. waana dhacday taas. waxaana tusaale u soo qaadan karnaa hogaamiyihii Liibiya Muammar al-Qadaafi iyo Masar Xusni Mubaarak. intaas kadib Saddam Hussein waxa uu fuulay diyaarad helikobtar ahayd oo lagu geynayay goobta daldalaada. intii uu saarnaa diyaaradda waxa uu dalbaday in aan indhaha laga xirin si uu aragtidiisa ugu dambeysay ugu eego magaalada Baghdad. waxayna ahayd daqiiqado aad u kooban kadibna diyaaraddii ayaa soo caga dhigtay saldhig ay Mareykanka ku lahaayeen oo ku yiil dhanka galbeed ee webiga Dijla, gaar ahaan deegaanka Qaadimiya. Khalil Duraymi waxa uu sidoo kale kashifay in markii Saddam la geeyey saldhigaas ay la wareegeen ciidamadii dowladdii gacan ku rimiska Mareykanku samaystay ee Ciraaq. markii Saddam gudaha loo dhaadhiciyey xarun ay maamulayeen laanta la dagaalanka argagixisada oo loo qisaasay ama loogu talagalay fulinta dilalka madaxdii dowladdii Saddam, ayaa Saddam wuxuu gudaha ku arkay wajiyada mas'uuliyiin iyo saraakiil uu garanayay geesinimadooda iyo siday Mareykanka ula dagaalameen. Saddam ayaa aad u dhowlo cadeeyay markuu arkay ragaas oo iyagana dil ku xukunaa, waxaana uu ku yiri sida tan: ha cabsanina, waxaad ahaydeen geesiyo naftooda u horay dalkooda, sharaf ayaad ku dhimanaysaan. markii Saddam loo gudbiyey qolkii daldalaada ayaa waxaa yimid oo soo galay gudaha ciidamo uu watay Muqtada Sadr oo ahaa hogaamiye diineed Shiico ah. Saddam ayaa markii uu arkay ku yiri sida tan: ha noolaato Ciraaq, ha noolaato Falastiin, ha dhacaan dabadhilifyada, annaga waxaan geli doonaa jannada, dabadhilifyadana naarta. hoolka ay ka dhacaysay daldalaada Saddam kuma sugneen hal mas-uul oo Sunni ah, waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin dhammaantood Shiico ahaa iyo saraakiil Mareykan ah. qareenkii hore ee Saddam Khalil waxa uu sidoo kale kashifay in shakhsi Yahuudi ah uu goobta yimid si uu u qiyaaso dhirirka xariga lagu daldalayay Saddam, waxaana sababta ay ahayd si uu uga arguto gantaalihii uu Saddam ku garaacay dhulka Yuhuudda xilligii uu socday dagaalkii Khaliijka.
waa uu socday saadaam weliba isagoo jees iyo isla weyni ay ka muuqato. waxa uu ahaa mid iibaan leh, raallina ku ah qadarta eebbe. intii loo sii waday dhanka saalada daldalaadda, shakhsiyaadkii shiicada ahaa iyo iiraaniyiinta ayaa isku dayay in ay ihaaneeyaan iyagoo aflagaadeynaya. sidoo kale qaarkood ayaa garaacayay isagoo labada gacmood ka xiran, laakiin waxa uu ahaa mid aan waxba ka soo qaadin hadalladooda iyo ficiladooda. waxa uuna ugu jawaabay sida tan: waxaad tihiin qaa'imiin cumulo ah, cadowga shacabka ha dhaco Maraykanka iyo dabadhilifyada ha noolaato muqaawamada, ha noolaadaan shacabka Ciraaq. Duraymi ayaa hadalkiisa kusoo gabagabeeyey: saadaam wuxuu hor istaagay xarigga isagoo geesinimo iyo adayg ay ka muuqato. sida ay caalamka dhammaan subaxaas wada daawanayeen waxay ahayd cagsiga wixii ay filayeen cadowga sida Iiraan iyo Israa'iil. saadaam waxa uu ku dhawaaqay shahaadateynka ka hor intaana daldalin. markii ay nafta ka baxaysay waxa uu ahaa mid dhoola cadaynayay, isagoo meyd ah ayay garaacayeen, haraatinayeen fuleeyadii dabadhilifka u ahaa Maraykanka. allah u naxariistay saadaam waxaa la daldalay subax sabti iid ah, kuna beegneed 30 Diseembar sanadkii 2006. daldalaadiisa waxay ahayd mid laga wada daawanayay tiifiyada caalamka ugu caansan. waxa uu saameeyey dhammaan wadooyinka carabta iyo dunida islaamka. inta badan madaxda carabta ayaa ka aamusay oo aan ka hadlin, marka laga reebo kuwa yar oo soo saaray tacsi iyo eedeymo laga yaqyaqsado. balse malaayiin xujaaj ah oo maalinkii la dilayay xajka Carafo u taagnaa ayaa u duceeyey geesiga islaamka iyo carabta. waxa ay dadku ku xasuusan doonaan in uu haliyey geesi ahaa. waxaa lagu xasuusan doonaa in uu lahaa shakhsiyad iyo haybad aysan lahayn madaxda carabta iyo dalalka islaamka ee maanta jira. xasankii labaad, boqorkii Morocco ee hore, waxa uu yidhi marka uu saadaam ka hadlay fagaarayaasha iyo shirarka madaxda carabta: waxaan ahayn kuwa aamusa, madaxeenana hoos ayuu u raarici jiray. allah u naxariistay saadaam wuxuu lahaa iraado aan ogoleen in ay u quduucdo ama isu dulayso gaalada. gabagabadii, haddii uu idin cajab geliyey muuqaalkan, like saar, siina sheer gareeya. mahadsanidin.